بسم الله الرحمن الرحيم. ujeedo la wareegid hantima guurta ku socoto marwo fahma warsame gabayare og agaasimaha waaxda maamulka dhulka gudoomiyaha degmada xamar jajab garyaqaanka dawladda hoose xamar wakiilka duqa ee arrimaha dhulka taliska ciidanka ilaalinta deegaanka xamar taliska hay'adda nabad sugidda gobolka banaadir taliska qaybta guud ee booliska gobolka banaadir xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed wasiirka wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya og ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya og madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho markuu arkay dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markuu arkay qodobka 182 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed markuu arkay qodobka 681 682 683 iyo 684 ee xeerka madaniga Soomaaliyeed markuu arkay qodobka 34 farqadiisa labaad ee sharciga nabadgelyada guud ee dalka ee maamulka dhulka dhismaha ee gobolka banaadir markuu arkay qodobka 32 ee sharciga la dagaalanka argagixisada markuu arkay warqad ka soo baxday taliska qaybta guud ee booliska gobolka banaadir taariikhda markuu ahaa 1 bisha afraad 2025 ujeedadeeduna ahayd ka warbixin dhacdo iyo codsi la wareegid guri uu saxiixay gaashaanle sare Mahdi Cumar Muumin taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka banaadir markuu arkay warqad ka soo baxday wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya taariikhdu markay ahayd 12 bisha afraad 2024 kuna saxiixnaa senator Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag wasiirka wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya wuxuu soo saaray xeerkan qodob koobaad laga bilaabo maalinta xeerkan la saxiixo dawladda hoose ee muqdisho waxa ay dan guud ula wareegtay dhul ay leedahay muwaadinka lagu magacaabo fahma warsame gabayare kuna yaala degmada xamar jajab waaxda geheer laanta saqaawadiin cabirkiisuna yahay 20 lagu dhuftay 15 isla markaasna waxa la baabiiyay dhammaan warqadihii lahaanshiyaha ee muwaadinka lagu siiyay dhulkaasi kadib markii gurigaasi ay u isticmaashay ujeedo halis ah oo liddi ku ah amniga qaranka walina ay taagan tahay khatarta gurigaasi la wareegida gurigaasi ayaa loo cuskaday sharciyada iyo xeerarka sare ku xusan iyo warqadaha ay soo gudbiyeen wasaaradda amniga gudaha iyo taliska qaybta guud ee booliska gobolka banaadir qodobka labaad xeerkani wuxuu dhaqangal noqonayaa markii uu saxiixo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane maxamed axmed amiir waana uu saxiixay mahadsanidin wabillahi tawfiiq